wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga Hilaac qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la wareegay ammaanka madaxtooyada qaranka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa ka qayb galay shirka wada xaajoodka iyo sidoo kale soo bandhigista saboolnimada sidii looga hortagi lahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaala ayaa waxa uu daahfuray shirka horumarinta qaranka munaasabad lagu xusayo ka hortagga musuqmaasuqa ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagreen ayaa magaalada Baydhabo wuxuu ka daahfuray shirka horumarinta qorshaha kaabayaasha dhaqaalaha dalka golaha baarlamaanka Puntland ayaa war ka soo saaray ciidankii la wareegay xarunta baarlamaanka Puntland gudoomiyaha guddiga eegista iyo la socodka dastuurka ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale wasiir ku-xigeenka wasaaradda ammaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta daahfuray xarun cusub oo lagu soo kordhiyay taliska ciidanka taraafikada Turkiga ayaa war cusub ka soo saartay dilkii wiilkii madaxweyne Xasan Sheekh ka geystay dalka Turkiga guud ahaan warka TV-ga Hilaac baa naga intaa